ka soo baxnay shir waxaa nagu soo booqday muqdisho yimi agaasimiga guud ee European Union ku qaabilsanaa gargaarka iyo horumarinta wuxuu u yimi in dawladda la shiro madaxda dawladda oo sarkeen ka bacdi waxaanu kala seexanay heshiiskaas oo ah gargaar ay ugu deeqeen Soomaaliya aan ka aqbalay oo saddex qaybood kala ah hormaamul wanaaga dawladda inay gaarto shacabka iyo capacity building ama in kor loo qaado tayada wasaaradaha dawladda qayb ka mid ah marka runtii arrimahaas aan ka wada hadalay aan ugu mahadnaqaynaa European-ka taageerada ay noo muujiyeen saad la socotaan mashaariicda Europe ay bixin jirtay ay siin jirtay Soomaaliya marka hore iyagu ay saxiix jireen maamul jireen hadda Soomaaliya la soo wareegtay wasaaradda qorsheynta ayaa gacanta ku haynaysa mas'uulka ah mashaariicda Soomaaliya European-ka bixiyaan oo dhan oo saxiixdaas kala hadda wax ka dambeeya